innaga ilaahay tabaaraka wa tacaala laascaanood ina makkaniyey oo joogna inta Somaliland maanta ka joogtaa waa in kooban wayna ka baxaysaa inta sandullay kaga baxaysa ama haysadkeeyana ma yaanaysadkan way baxayaan alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد والله ليال وحين مركه رئيس الدردار من ربي جل جلاله عبسديس الله تبارك وتعالى واتكعبسته معناه دوائن وحي إلهي وكفري لقاهلو وحي الله تبارك وتعالى وكاربي لقاوايو وانا أرنت الليبان تاذا الدنيا تآخر بأي كتشرتو وأرنت عزقاقية شرفت أي كتشرتو إن أدقرتو وحي ربي جل جلاله كو أبو ري وعبادتي ساه وأتكفقاتو وحلال وحي ربي جل جلاله وكاربي كان فوقي والله ليال وحين أقنهي مقالة إن الله سعانود duulaankii iyo gardaradii dulmiga ahaa inuu weli ku socdo maatadii qaxday mooyaane intii hadhay waxa ku socda duqayn iyo weerar duqaymihii u dambeeyay waxa ku geeriyooday dad aad u qiimo badan oo ganacsato lahaa odayaal dhaqan iyo guurti lahaa abwaanna lahaa waxa u dambeeyay duqayntii 16 bishan 8 uu ku geeriyooday allaha u naxariistay abwaankii qiimaha badnaa ee sharafta lahaa abwaan jaamac kadiye cilmi ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u naxariisto abwaanka halkii duqayntu ay ku haleeshay ee madfaca fulayadu ay soo ridayaan oo ku haleelay waxaanu jiray 100 mitir in ka yar ayaanu jiray markaa oo maray malaha waxa la fool xumaaday Somaliland iyo maamulka dhaalimka ah dilkii ay u geysteen abwaan jaamac kadiye markaasay waxay bilaabeen propaganda iyo been kuwooda waaweyn awalba duulaanka amrayay inay soo xarxariiqaan oo yiraahdaan jaamac kadiye ma naan dilin jaamac kadiye magaaladii aad duqaynayseen ayuu jaamac ku noolaa magaaladiisii ahayd dadkii aad duqaynayseen buu jaamac ka mid ahaa duqayntii nibaana dishay jaamac kadiye inagoo wada garanayna haddana kumu ahaa jaamac wuxuu ahaa allaha u naxariistay abwaan ama laashin tixabadan ka tiriyay godadka suugaantu ay leedahay badankeeda wuxuu ahaa abwaan jaamac wadaad marka ay noqoto xusuusin alle iyo waano wuxuu ahaa nabadoon marka ay joogto nabadayn iyo walaalayn iyo heshiisiin waxaynu garanaynaa nabadayn badan oo ka qayb qaatay oo hormuud ka ahaa baynu garanaynaa allaha u naxariistay abwaan jaamac wuxuu ahaa waalid iyo gurgursha hayin ah oo hayin u ah intii uu dhalay intii ehelka la ahayd iyo guud ahaan ummadaba wuxuu ahaa abwaanku midaan kala bakhaylin guud ahaan ummadda Soomaaliyeed talo tusaale waano ku boorinayo horumar midnimo wadajir iyo ku dhaqanaanta ay ku dhagan yihiin diintooda iyo dhaqankooda wuxuu ahaa bashaash furfuran oo dadku wada jecel yahay waxa la dilay isagoo jooga deegaankii uu ku dhashay deegaankii uu ku dhaqmay isagoo dhowr iyo 70 jir ah oo daa baa la dilay gardarra lagu dilay
oo gardaradii dadkiisa lagu leynayay baa isna lagu dilay gardaradii magaaladiisa lagu duqeynayay baa lagu dilay allah u naxariistay isagu waqtigiisii ma dhaafeen abwaan jaamac geeridana wuu ogaa allana tabaaraka wa tacaala waxaan uga baryaynaa baryooyinkii uu ku baryi jiray marka uu dhinto in ilaahay tabaaraka wa tacaala u naxariisto oo uu ka raali noqdo in ilaahay u aqbalo waxaa ka mid ahaa tuduciyadii uu rabbi jalla jalaaluhu ku bariyey gabaygii dheeraa ee xuruufta hijaa'iga ah ama gabayga alifka ya tuduciye ka mida ilaahay tabaaraka wa tacaala buu si gaara ugu bariyey oo marka nafta laga qabanayo in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu raali ka noqdo buu rabbi jalla jalaaluhu ka bariyey allahu aqbalo tuduciyada waxaa ka mid ahaa tuduci ra'da ee uu lahaa ra'itiri run weeyo adduun ma laha raandhiis rasuulkiiba waa kaa ka tegay raaskii duniyeed waxse raaxo helay waa ninkii raacay nebigii allow raalli noo noqo markaad rubadda goynayso ilaahay raalli ha ka noqdo waxaa ka mid ahaa tudcii shiinka ee uu lahaa shiin yidhi sharkiiyo khayrku waa shayo kala dheer qofba kuu shaqaystu ugu yaal shaaca aakhiro allow naga shaxiix naartu waa shiidka gaalada ilaahay naartiisa ha ka ilaaliyo ha ka dheereeyo qabrigana beerbeeraha jannada ka mida rabbi jalla jalaaluhu ha uga yeelo cadowgii dilay waxa ay mudan yihiin rabbi jalla jalaaluhu ha kula dhaqmo dhiiggiisu wuxuu u noqonayaa dadka deegaankan degan shidaal iyo dab cusub oo idamka alle ay ku guban doonaan kuwii dhiiggiisa xambaartay horena dhiig badan iyo nafo badan inooga gooyey dhiig badanna inaga daadiyey ayaa ku guban doona haddii rabbi jalla jalaaluhu idmo wanaagna ka heli maayaan oo ka dheefi maayaan waxay ka dheefayaan dhibaato waxay ka dheefayaan cuqubo rabbi waxay ka dheefi doonaan insha allahu tacaala jabkoodoo soo degdega ayay ka dheefayaan insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed dadka deegaankan degani way jecel yihiin way jeclaayeen ciddii soomaali ka mid ah ee dhibaata gaadho dadka deegaanadan degani way u gurman jireen way la damqan jireen dhibaatadaas siday uga samata bixin lahaayeen bay ku dadaali jireen oo kala qayb qaadan jireen waxaanu leenahay sidii aanu idinku lisnay nooguma idin hambayn cadow naga gardaran ayaa duulaan nagu ah 7 bilood oona duqaynaya oona la dagaalamaya aanu iska difaacaynayo difaaciisa u taagannahay wax allaale waxaanu ka haynaa ma jiro dalka ma hayno oo halkan annaga alla nagu dhaqay duunyo kama hayno dadka ma hayno wax allaale waxaanu ka haynaa ma jirto wax allaale waxaanu ka haynaa ma jirto gardaray duulaan noogu yihiin deegaanadooda duulaan kumaanaan qaadin oo ugumaanaan tegin hanti ay leeyihiin kamaanaan soo qaadin soomaali badankeed waa ka aamusto afkay ka xidheen qaar badani waxay ka xishoodeen war waad khaldan tihiin war waad gardaran tihiin waxaa intaa ka sii daran dadkii cadowgaa daalimkee somalilan uu qixiyey ee magaaladoodii uu ka qixiyey ee bacadkiiyo dhaxanta wadhan waxtar cid la soo gaadhay waa yarta waxtar cid la soo gaadhay iyo gargaar way yarta soomaaliyay sidii aanu idinku lisnay nooguma idin hambayn waxaana lagu dilayo waa soomaali la kala goyn maayo oo deegaanka iyaga soomaali laga goyn maayo waxaana lagu dilayo waa soomaali waa walaalo oo kala tegi mayso oo waa mid baana lagu dilaya waayo dal iyo dadtoona kama hayno qolada intana lagu dilayay la raba in lagu sanduleeyay aanu diidnay waa intaa waxaanu leenahay war wax kale hana tarine maatada la qixiyay wax tara
oo u soo gurmada oo waxtar iyo gargaar la soo gaadhaanu leenahay. waxaan leeyahay guud ahaan dadka deegaankan ku dhaqan rabbi jalla jalaaluhu ka baqa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala xadhaygiisa qabsada oo cibaadadii rabbi jalla jalaaluhu idin abuurtay ha laydinka helo. wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun, uma aanan abuurin jin iyo insi inay caabudaan mooyaane wax kale. war cibaadadaa haysta oo la noolaada oo ku dhinta. wuxuu leeyahay rabbi jalla jalaaluhu wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin. caabud